kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo maqalka yaga iyo muuqayaguba idinka soo gaadhaya waa mar kale iyo barnaamijkeennii cusbaa ee hiil qaran codka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. hiil qaran waa taxane cusub aan ugu talagalnay inaan idinku soo bandhigno xaqiiqada Soomaaliland taallay cadowga jamhuuriyadda isku dayayo inuu caad ka saaro. taxaneena labaad ee toddobaadkana waxaanu idinku soo gudbin doonaa madaxda Soomaaliya oo adeegsanaysa bidhiqaatayaal ay barabagaantooyin soo dhiibto oo soo badanaya baraha ay ku kala nool yihiin beenaha ay sheegaan iyo biilka ay qaataanba barnaamijkan ayaad kaga bogan doonta. kadib markii ay xorriyadii luntay dib ula soo noqdeen shacabkii waqooyi ee Soomaaliland dad badan ayaa aaminsanaa in hagaardaamooyinkii iyo hawlihii Soomaaliya halkaasi ku dhammaadeen hase yeeshee dagaalkii lagu kala calafka qaaday ee 10 sano socday kadib waxay siyaasiyiinta reer Soomaaliya u bedeleen mid dhinaca afka iyo propagandada ah oo marxalado kala duwan marayay 30 sannadood oo ay Soomaaliland jirtay. maantana waxaynu ka hadli doonaa lacaga Soomaaliya ay ku bixiso beeno laga faafiyay Soomaaliland iyo sidii mushaakil kale loogu furi lahaa shacabkii ka soo toogay hagardaamadii shalay. aan ku horeeyay dawladii Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayd soo bilowday barnaamijkan ay ugu magacdartay barnaamijka isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed. waxay horaantii muddo xileedkeeda maalgelin uga heshay dalka Turkiga oo $7 milyan sanadkiiba ku bixinayay barnaamijkaasi. waxaana madax ka ahaa wasiirkii warfaafinta Maxamed Xayir Maareeye iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenadii kala dambeeyay Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan iyo Maxamed Cumar Carte oo iyagu Soomaaliland inta ka khusaysa maamulayay. dhicitaankii dawladii Xasan Sheekh Maxamuud iyo imaatinka madaxweynaha xukunkiisa mushaakilka badani hadheeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay mar kale abuureen barnaamij kale iyaguna ugu magacdareen iscafis qaran ayna la kaashadeen dalka Qatar. waxayna isku dareen labadii barnaamij oo bixiyeen barnaamijka isdhexgalka iyo iscafis qaran waxayna si toos ah u maamula waqtigan madaxweynaha dalkaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre oo ku adeeganaya shakhsiga ugu magacaaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ayna ka dhigteen fuliyaha dabinada iyo shirqoolada Soomaaliland loo soo mareego shaqadiisuna taa intaas oo keliya. Khadar oo hore looga eriyay jaamacadda Hargeysa ayuu Farmaajo gacanta ku dhigay kuna magacaabay xilka waraabowtaaga ah ee aan shaqayn una muuqda quursiga. waxayna barnaamijkii ka dhigeen mid ay dagaal toosa kula galayaan dawladda Soomaaliland iskuna dayayaan inay kala qaybiyaan shacabka jamhuuriyadda isla markaasna cunfi iyo caadifad ku kala dhexdhigaan ummadda midowday ee reer Soomaaliland. haddaba maxay ku kala duwanayeen ama sidee ay barnaamijkan u kala maamuleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo ka hor intii aynan u gudagelin qaybaha ugu xiisaha badan ee barnaamijkeena. dawladii Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo isku dayeysay inay kala furfurto bulshada Soomaaliland haddana waxay ahayd mid aan muujinaynin xumaan gaar ah oo u qabto reer Soomaaliland kuna kooban midnimada ay had iyo habeenba ku riyoodaan. Farmaajaha waqtigan jooga waxa uu si badheedha u muujiyay cadaawad iyo cilqabnimo uu hayo ummadda reer Soomaaliland oo ku salaysan isirnacayb iyo argudasho. waana sababta reer Soomaaliland Farmaajo ugu yaqaanaan si aad barihii bilaa awood ahaa. mucaaradka dalkaasina uu ka mid yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuurna ugu eedeeyo Farmaajo nacayb iyo dagaal toos oo kula jiro Soomaaliland. farqigaas ayaa ka u dhaxeeya labadii madaxweyne ee kala dambeeyay ee dalkaynu jaarka nahay ee Soomaaliya soo maray. labada siyaasi afmishaarnimada ku haysta Soomaaliya khalkhalka badan geliyay dalkaasi dibna u lumiyay didiiladii nabadeed ee shacabkaasi u soo iftay ee ay soo dhiseen madaxdii dalkaasi ee ku horeysay marka laga yimaado inay dagaal kula jiraan Soomaaliland oo barnaamijkooda isdhexgalka iyo iscafis qaran ay ugu yeedhaan isku dayayaan inay ku dhabarjabiyaan dalkeedna ka sokow. waxay isla barnaamijkaasi ku khiyaamayaan shacabkooda iyo dawladda ay madaxda u yihiin marka loo eego lacagaha ay kaga qaataan dawladaha Turkiga iyo Qatar ee malaayiinka dollar kuna diiwaan gashan inay ku bixiyaan barnaamij midnimo doona balse ayagu si toos ah u qaataan marka laga yimaado $50,000 oo kaliya ahna taayisiyaan ashkhas calooshoodu shaqaystayaal reer Soomaaliland
Somaliland oo ay kireysteen inay dalkooda ku waxyeeleeyaan isuguna jira kuwa ay ku sheegaan siyaasiyiin sixil doona oo xiljacayl dartii xamar u tagay dibaaqayana shaqooyin laga eriyay iyo xilal loo diiday kuwa ay ugu yeedhaan saxafiyiinse manfac baadi goobaya oo mahinadoodii u xaraashay si ay shilimaad xamar uga helaan kadib markii warbaahinta Somaliland qaarkood ay shaqo ka waayeen kuwa ay ku magacaabaan halabuur balse maalraadis iyo kuwa ay dhahan waa qoraayase magacadoona oo tiro yar tamar yar tayana yar haddii laftarkooda waa siyaasiyiinta Soomaaliya lacag lagu siiyana suurtagal tahay inay iyagaba dib u maagaan markana aan eegno lacagaha ay siiyaan iyo ashqaasta ay ku shaqaystaan labada dhagar qabe ee Muqdisho dhiig baxa ku ah iyaga oo ka duulaya qorshe xumo ay u arkaan istaraatiijiyad siyaasadeed waxay sameeyeen lacag billaah ugu talagaleen inay ku biiliyaan dhalinyaro aan isbixin karin si ay ajandayaashooda u dhexmarsadaan balse iyaga dhexdooda ayaa iskhiyaameeya tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisu waxay u sheegaan farmaajo in lacag dhan $270,000 ku bixiyaan in ay kala qaybiyaan dhalinyarada Somaliland ku kiciyaan dawladooda isla markaasina ku hawlgeliyaan kumanaan dhalinyaro reer Somaliland ah iyaga oo sii mariya ashqaas cayiman balse xataa shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee ka soo jeeda Somaliland ayaa og warkaasi inuu been yahay oo markaad la sheekaysato kaaga waramaya sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa isna sii qiyaamay ra'iisul wasaarihiisa wuxuuna u sheegaa in gobol kasta oo Somaliland ay u joogaan 100 qof oo mid kasta wakiil uga siiyahay 20 qof uuna ku filaysiiyo $50,000 oo ah lacagta rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisu isla ogyihiin una qorsheeyeen inay u daadiyaan kuwa ay baahiyahooda ku guuraan beenahaas oo dhan markaaynu ka nimaadno si aan xog badan uga ogaano arrintaasi markaanu tixraac ku samaynay shaacinayna inaanu soo bandhigi doono barnaamij la xidhiidha waxa nala soo xidhiidhay dad badan oo iyagu noo sheegay inay arrimahaasi xoga ka hayaan qaarkood la shidhiimi warar xaqiiqo u dhow cadaymo lagu kalsoonaan kara wata sida kuwa hore xamar u tagay haddana dib ugu soo noqday dalkoodii indhahoodana wax ku soo arkay dadka warbixintan aanu ka xiganayna waxaa ka mid ah muwaadin reer Somaliland oo daraasad ballaadhan ku sameeyay arrintaasi baadhis badan iyo cadaymo badan oo uu ka diyaariyeyna ii sheegay inuu dhowaan dawladda la wadaagay anigana la wadaagay sidoo kale waxaa ka mid ah muwaadiniin reer Somaliland oo aan ka tanaasulin mowqifkooda iyo jiritaankooda Somalilandnimo haddana ku sugan xamar kana shaqeeya wasaaradaha Muqdisho iyo xarumaha dawladda ee looga aramiyo Soomaaliya oo si niyad samiya kaaga waramaya ashqaasta u timaada waxa la siiyo iyo waaqaca xamar yaala xaqiiqada dhabta ah ee aanu ogaanayna waxay noqotay ra'iisul wasaare ku-xigeenka aan shaqada cayiman lahayn ee dalkaasi Soomaaliya oo isagu ah shakhsiga hawshan gacanta ku haya waxa uu diiwaan gashan 81 qof oo reer Somaliland ah waxaana ay siiyaan dhaqaale kala duwan oo isugu jira $250 ilaa $1,200 inta u dhaxaysa dadkaas ay dalkooda u adeegsadaan oo u badan dhalinyaro waxa inta ugu badan ay ku nooshahay magaalada Muqdisho oo ay joogto in ku dhow 50 qof oo ra'iisul wasaare ku-xigeenku ku buuxiyay dhalinyaro shaqo raadis halkaasi u joogtay inay barnaamijkaas ugu magacawnaadaan waxayna ka qayb galeen 2 shir oo ay ugu yeedhaan shirka dhalinyarada Soomaaliyeed oo 2017 iyo bishii December 2018 ka kala dhacay Muqdisho iyagoo laga dhigay inay Somaliland ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira dhalinyaro loo kala diray dalalka Kenya Qatar iyo Turkiga halkaas oo loogu diro lacago aan buurnayn oo nolol maalmoodkooda lagu qiyaasay si ay dalkooda u soocayaan qorshaha cusub ee ugu dambeeyay hadda dajiyeen ayaa in dhalinyaro lagu khaldo fiisayaal Turkiga iyo wixii ay halkaasi kaga noolaan lahaayeen iyagana looga faa'iideysto inay soo barabogaandeeyaan dalkoodii hooyo waxayna qaarkood dalkaasi ka soo faafiyaan beena ay ku raadinayaan lacago ay kaga sii tahriibaan dalkan qabow ee Yurub kaabiga ku haya waxa kale oo iyaguna jira dad lagu sheegay 18 qof oo Somaliland uga diiwaan gashan bishiina la siiyo lacago isugu jira $300 ilaa $600 lana sheegay inay kala joogaan magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Boorama waxaana ka mid ah 2 saxafi oo dhawaan Muqdisho tagay oo midna $500 loo soo qoray midna in $600 loo ballan qaaday bishii la ii sheegay waqtigan Hargeysa ku soo noqday iyaguna soo ballan qaaday in gudaha Somaliland ay ka soo qaban doonaan shaqooyin iyaga u dana oo toddobaadkii u dambeeyay oo nisha ku hayaba u muuqday kuwa bilaabay hawlihii ay xamar ka soo ballan qaadeen dhalinyarada ugu badan ay diiradda saaraan waa kuwa waqtiga badan geliya baraha bulshada saxafiyiinta dhalinyarada wax samsamaysa iyo kuwa wax qorqor ay u arkaan inay door muhiim ka ciyaari karaan kala qaybin lagu sameeyo da'yarta dalkan oon xogta badan ka haynin 18 qof ee la sheegay inay dalka joogaan ayaa ugu kala jira sida ay sheegtaan xisbiyada qaarkood bahda qalinka iyo warbaahinta waxayna halkaas kaga diiwaan gashan yihiin inay doorka ugu wanaagsan ka ciyaaraan kicin dadweyne oo reer Somaliland lagu sameeyo iyagoo xidhan shaar xisbi mid saxaafadeed mid hal abuur ama qoraanimo waana tan shaxda 81 qof ee Soomaaliya u diiwaan gashan 46 qof oo dadkaas ka mid ahi waxa ay joogaan xamar
18 qof oo Hargeysa, Burco iyo Boorama ay sheegeen inay joogaan, 2 kamid ahayna yihiin saxafiyiin. 9 qof oo Turkiga fiisayaal ay uga soo saareen oo xaggaas hadda ku sugan. 2 qof oo kamid ahaa 7 qof oo ay Qatar waqti hore u direen, balse 5 kamid ah isaga tagtay oo hadda 2daasi ay Qatar ku hadheen. 5 qof ee barnaamijka dhabarjabinta Soomaaliya ee Qatar dhalinyarada loo geeyay isaga tagtay ama dib uga noqdeen waxa kamid ah suxufi Somaliland u dhashay oo la yaqaano se waqtigan barnaamijkaas lacag qaadashada ah ka baxay. Ma cadda inuu saluugay $100 iyo in kale, se waxa la cadeeyay waqtigan inaanu kamid ahayn 81 qof ee Soomaaliya lacagta ka qaata. waxaana dheer 4 qof oo Kenya ka diiwaan gashan. waxaase cadayn 2 qof oo iyaga la xaqiijin meeshay joogaan, balse la cadeeyay inay jiraan lacagta ugu badan qaataan kana mid yihiin kuwa hawlaha ugu badan qabta ama dadka ku dhiirigeliya inay xamar tagaan. 81 qof ee reer Somaliland balse xamar lacagta ku siiso dhabarjabinta dalkooda. 76 kamid ah waxa la soo gudbiyay magacyadooda deegaamada ay kala qoteen, lacagta ay qaataan iyo goobaha ay ku kala nool yihiin oo shax lagu soo muujiyay, balse si aanay u muuqan in cid gaara loo jeedo ama barnaamijkeenan oo aanu doonayno inuu dadka isku soo dhaweeyo hilna u noqdo qarankeenu aanu sii fogoyn iyaga oo dana kala duwan u galay arrimahaasi ama bulshadeena kala kulminta koor iyo dhibaato. waxa tala ka timi muwaadiniin reer Somaliland iigu soo jeediyeen in waqtigan aanan shaacin magacyadooda, balse hay'adaha ku shuqulka leh ilaalinta qarannimada la wadaago, waana sababta aanu guud maray. haddaba siyaasadda la yaab kale ee adeegsadaan Farmaajo iyo Khayre ayaa u egtay kacaanka Yuhuuddu Falastiin dhulkeeda ku qabsadeen. Yuhuudda ayaa dejisay istiraatiijiyad siyaasadeed oo ay kaga faa'iideysanayaan Falastiiniyiintii baahiyaha gaarka ah qabay sidii kuwii danyarta ahaa, dhalinyaradii shaqada iyo lacagta u baahnayd, kuwii aan aragtiyaha dheerayn ee waxay cunaan keliya ku fikiri jiray, kuwii lacag inay helaan wax walba u samayn jiray oo ay ka dhigteen basaasiin aakhirkii dhimasho dhaxlay, dalkoodiina burburka iyo gumaysiga ilaa maanta uu ku jiro baday. Sitaas la mid Soomaaliya ayaa waxay waqtigan diiradda saartay dhalinyarada bilaa camalka ah ee aan shaqayn, kuwa aan haysan dhaqaalaha iyo kuwa lacag la siiyo wax walba u samayn kara, xataa qoysaskooda ku waxyeelayn kara oo marka adeegto kuwa la shaqeeya qaar ka mid ahi xataa reerahoodii lama soo hadlaan oo waxay uga googoosteen sida ay Somaliland uga go'een. iyaga waxay ugu yeedhaan howlwadeenno, balse hay'adda NISA oo hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa dhawaan u aqoonsatay basaasiin u shaqeeya ra'iisul wasaare ku-xigeenka, waxayna warqad ay soo saareen bilowgii sanadkan oo saxaafadda soo gaadhay kaga codsadeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka inuu ku soo wareejiyo. waxay ku sheegeen basaasiin Somaliland uga shaqeeya u sheegeen in iyaga mas'uuliyadoodu tahay iyagoo u jeeda dhalinyaradaasi. khilaafkaas oo cirka isku shareeray, warbaahintana la isaga jawaabay waxaa NISA muddo bil ah ay u qabatay inuu hawshaas ku soo wareejiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka, balse waxa markii dambe dhameeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo labada dhinacba u sheegay inay yihiin hawlo kala madax bannaan. 81 qof ee Soomaaliya u diiwaan gashan iyo $1,000 ee u qoran, haddii celcelis ahaan loo qaybiyo qofkiiba waxaa ku soo hagaagaya $617 oo keliya. arrintan naxdinta badan ayaa waxay tahay nooca uu yahay damiirka qofka $600 dhaafsanaya dalkiisa, dadkiisa kagana abaalka dhacaya nabadii iyo noloshii xasiloonayd ee lagu soo barbaariyey. walow aanay waxba u dhimi karin calooshoodu shaqaystayaashu wada jirka iyo horumarka Somaliland, walow bulshada iyo daayarta Somaliland meel ay uga soo wada jeedaan farta ku fiiqaan dhigna aanay jalaq u siinin, marka adeegto sida midnimada leh ay uga dareen celiyaan dhuuni qaatayaashu wax kasta oo ay ku soo baahiyaan baraha bulshada oo bulshada Somaliland aad ugu maagto si isku mid ah. walow aanu qof kasta oo muwaadin reer Somaliland aanu jeclaysan mid la dalah oo cadowga u dulaysan marka uu arko, wuxuuse ku niyad samaadaa isku day kasta oo dalkan lagu inuu noqdo mid bulshada isku sii dhaweeya, siina mideeya naca iyo nacaybka cadowgana sii kordhiya. waxseed ku ursamata arligaygo irbaka ma xidi karo aqoon yare bulshada la kuweedo. haddii aan eegno habdhaqanka guud ee 81 qofi waa tirays ka qaadata dhowrkooda $100 waqtina aan gelin wixii loo dirtay, kuwa maalmaha bishu soo dhowdahay wax soo qorqora iyo kuwa si aanay uga go'in biilku daqiiqad kasta iska soo qorqora wax lagu qoslo. meelaha isku dayaan inay Somaliland ka soo weeraraan waxa kamid ah in xisbiyada dalka iyagoo ku kala abtirsanaya isku dayaan inay shacabka kala fogeeyaan,
mar waxay u soo xidhaan shaar reereed waxayna u kala abtiriyaan bulshada reer Somaliland waxay sameeyaan isku day kasta oo isleeyihiin waad ku kala fogeyn kartaa ummadda reer Somaliland iyagoo ku gabanaya dimuqraadiyadda aynu qaadanay iyo xorriyadda hadalka ee dastuurkeenu damaanad qaaday haddaba su'aashu waa $50,000 ma lagu kala qaybin karaa Somaliland $50,000 ma kicin kartaa bulshada Somaliland si dhalinyarada ay baahiyahooda dhaqaale ka faa'iideystaan weligood ma baahnaan doontaa soo marun baahida kama bixi doonto jawaabtuna waxay noqonaysaa nin baahan bakhtigu waa u xalaal biilkiisana wuu qaadan bar uu ka helaba beentiisana wuu sheegi dal jirrido adag ku taagan sida jamhuuriyadda oo kalena weligii wuu jiri cadowgiisuna wuu jabay